Kamarad cusub oo arki karta waxaan la aragaynin, 3 iyadoo aan lahayn muraayado. Saynisyahano ayaa sameeyey kamarad cusub oo aan lahayn muraayado, taasoo isticmaasha farsamo casri ah oo ku salaysan sawir qaadista godka yar, pinhole imaging. Kamaradan waxay u beddeshaa iftiinka infraredka mid muuqda iyadoo la adeegsanayo kristal gaar ah, taasoo u oggolaanaysa dareemayaal caadi ah inay qabtaan sawirro cadcad oo ballaaran xitaa marka iftiinku aad u hooseeyo. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Faa'iidooyinka teknoolojiyadda cusub. Waxay arki kartaa calaamadaha kulaylka iyo raadadka kiimikada ee infraredka. Waxay ka shaqaysaa meelaha iftiinka aadka u hooseeyo. Waxay sawirro 3 ah ka qaadi kartaa walxo kala fog. Waxay ka jaban tahay, fududahay in la qaado, waana tamar badbaadin. Sidee ayay u shaqaysaa? Laser ayaa lagu sameeyaa god yar oo indhaha ah gudaha kristalka non-linear. Kristalka ayaa u beddela sawirka infraredka mid muuqda oo ay qabato kamarad silicon ah. Waxay ka shaqaysaa masaafo dhan 3 iyadoo aan lumin tayada sawirka. Sawir qaadista 3D. Waxay isticmaashaa pulses laser si ay u cabbirto qotodheerka walxaha. Hitaa marka botonska aad u yaraadaan, waxay weli soo saari kartaa sawirro 3D ah. Waxay cabbiri kartaa qotodheerka walxaha iyadoo la adeegsanayo 2 sawir oo kala fog. Mustaqbalka teknoolojiyadda. Weli waa tijaabo, waxay u baahan tahay qalab laser oo weyn. Saynisyahanadu waxay qorsheynayaan inay ka dhigaan mid degdeg badan, dareen badan, oo la jaanqaadi karta xaalado kala duwan. Waxaa la filayaa in loo adeegsado meelo badan sida amniga habeenkii, warshadaha, iyo la socodka deegaanka. Waa maxay kamaradan cusub? Kamaradan waa mid casri ah oo aan u baahnayn muraayado si ay u qabato sawirro. Waxay isticmaashaa farsamo la yiraahdo pinhole imaging, taasoo asal ahaan ah in iftiinka laga geliyo god yar si sawir loo helo. Laakiin kamaradan waxay ka dhigaysaa mid aad u horumarsan iyadoo la adeegsanayo kristal non-linear ah iyo laser si ay u beddesho iftiinka infraredka, kulaylka, mid muuqda oo ay qabato kamarad caadi ah. Sidee ayay u shaqaysaa? Laser ayaa lagu sameeyaa god indho ah gudaha kristalka non-linear. Kristalka wuxuu leeyahay awood gaar ah oo u beddela iftiinka infraredka mid muuqda. Kamarad silicon ah, sida kuwa caadiga ah ee taleefannada, ayaa qabata sawirkaas. Waxay sawirro cad ka qaadi kartaa walxo kala fog ilaa 3 xitaa marka iftiinku aad u hooseeyo. Maxay uga duwan tahay kamaradaha caadiga ah? Ma isticmaasho muraayado, sidaas darteed ma jiraan qalloocyo ama xadidaad dhanka qotodheerka. Waxay arki kartaa kulaylka iyo raadadka kiimikada, taasoo ka dhigaysa mid waxtar u leh warshadaha, deegaanka, iyo amniga. Waxay sawirro 3 ah ka qaadi kartaa, iyadoo aan u baahnayn qalab adag ama iftiin badan. Tijaabooyinka la sameeyey. Waxay sawir ka qaaday walxo kala fog 1 5 9 iyadoo tayada sawirka aysan lumin. Waxay 3 ku sawirtay rabbit dhoobo ah iyadoo la adeegsanayo pulses laser si loo cabbiro qotodheerka. Hitaa marka botonska aad u yaraadaan 5 botons per pulse, waxay weli soo saartay sawirro 3 ah. Mustaqbalka teknoolojiyadda. Inkastoo ay weli tahay tijaabo, saynisyahanadu waxay qorsheynayaan inay ka dhigaan mid yar oo la qaadi karo. Inay kordhiyaan dareenka iyo xawaaraha. Inay u adeegsadaan meelo badan sida infrared fog, terahertz, iyo far infrared, kuwaasoo muraayado adag yihiin in la sameeyo.